ayadoo roobab mahiigaana ay ka da'ayeen 24 saac la soo dhaafay magaalada Muqdisho kaasi oo saameyn ku yeeshay bulshada iyo gaadiidka ayaa maamulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir ka hadlay saameynta uu ku yeeshay shacabka degan degmada iyo dadka barakacayaasha roobkii ka da'ayay caasimadda magaalada Muqdisho roobkii 24 saac la soo dhaafay ka da'ayay caasimadda ayaa waxa ka dhashay khasaarooyin kala duwan iyo burbur soo gaaray wadooyinka qaar waxaana go'an qaar ka mid ah wadooyinka oo biyuhu ay fadhiisteen iyadoo saameynta ugu badan uu ku yeeshay roobabkaasi dadka barakacayaasha iyo gaadiidleyda wadayaasha mootobajaajta qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo khasaaraha ka dhashay roobka waxayna dalbadeen in wax laga qabto wadooyinka ay biyuhu fadhiistaan xilli roobaadka magacayga horta ugu horeen waa Maxamed Axmed Xuseen ku nool magaalada Muqdisho saameyn weyn buu nagu yeeshay roobka waxa kamid ah wadooyinkii oo xirmay wadooyinkii oo gogo'ay maalin walba cashuurtan waan bixinaa ma garanayna waxay saan u yihiin ilaa hadda meel walba hadda magaalada amarta xataa xaafadihi ma geli kartid biyaa fadhiyo taleex way go'an tahay wadadii kale taleex ayadan oo immigration ma la mari karo tii bintuna waatan hadda aan joogno ayadana waa la mari karo dadkii ma in la geeyay rabaan ma guryahoodii ma geyn karno marka saameyn weyn nagu yeelato saameyn aad weyn wallahi billaah tala aniga xataa bajaajta saaka waa ka soo tagaan soo wadi waay soo gudbiyay iskaga soo lug baan ku soo dhex jiiray oo hadda xiisadayda aan ku imaad xataa sidoo kale qaar ka mid ah ardayda imtixaanka ugu socda magaalada Muqdisho ee fasalada 8aadka ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay roobka saameyn weyn uu goostay soo lugaynay laakiin hadana wadada soo u buuxda biyaha la mari karo laakiin waa iska marnaa iska dhibanaan ka soo kaadeen gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Waabari gobolka Banaadir Cabdulqaadir Faarax Karaama ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay roobkii ka da'ayay caasimadda Allah ku mahadsan oo xalay iyo maanta na siiyay nimcadan roobabka nimco walbana nusqaanteedii leedahay jidadkii qaarkood biyaa fariistay ilaa xalay ilaa maanta waxaa dawladda hoose sida waaxda gurmadka iyo waaxda bulaacadaha waxay ku howleeyihiin inay wax ka qabtaan jidadka biyaha ay fariisteen sidaa u jeedaan waddada Madiina Almunawwara ama 15 Oktoobar loo yaqaano waa u jeedaan biyaha fariistay biyaasna waxaa la dadaalayo ku tacaalayo waaxda bulaacadaha dawladda hoose wadooyinka qaar ayaa waxaa ka jiray kala wareeg iyadoo gaadiidka yaryar ay ku soo mareeyeen biyaha fadhiya wadooyinka si dhib ah halka dadka qaar iyo ardayduba ay raacayeen gaadiidka waaweyn si dhanka kale ay ugu talaabaan maadaama wadooyinku ay fadhiyaan biyo aad u xoogan Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.